jannada waxa ay leedahay 8 albaabood kan mid kamid ah waxa la dhahaa arayaan waxa kaliya oo ka gala dadka sooman. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا يوتيوب channel كيغا وانيغو ولاشين حفصالك ادنغا داوانيسان وحفصة channel الا برنامج كان وحايدين سو قد بس اسلانيغو ولاشين حفصة سيد سو دوادا ميلول بقى شوكتان رمضان الكريم مر لبات امر سدحادو وحينوس سعودي سونكي احكانتيسا موضوعي عن مالمان سودنا ان شاء الله ما انت نوحا قادنينا قيبتي افراد بإذن الله. soonka kaliya ma ahan in laga soomo cunto cabid iyo galmada iyo hadallada xunxun ku dhawaaqistooda xataa hadii qof ku aflagaadeeyo waxaad ku leedahay waan soomanahay inimru imsaa'imun. saxiixeynka waxaa ku xusan xadiis uu soo wariyay Abu Hurayra radiyallahu anhu Allah karani noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri qofka sooman yuusan ku hadlin hadal xun hadii xataa qof caayo ama aflagaadeeyo ha ku dhaho waan soomanahay waan soomanahay inimru imsaa'imun. sidoo kale saxiixeynka waxaa ku xusan xadiis uu soo wariyay Sahal bin Saa'id al-Saa'idi Allah karani noqday inuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam jannada waxa ay leedahay 8 albaabood kan mid kamid ah waxa la dhahaa arayaan waxa kaliya oo ka gala dadka sooman insha Allah biri iyo qaybtii shanaad biidinillah. soonka fadligiisa ma ahan wax halkan lagu soo koobi karo hadii aan xadiis kamid ah soo qaadano xadiisul qudsi nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri reer aadam oo dhan amal walbo iyaga ayaa iskale oo ay shaqeysaan ilaa siyaam ilaa soonka maahine soonka فإنه لي أنيق أياله صونك وأنا أجزي أنيق أنك أول مرينايم سيدو كله الصيام جند صونك وقاشان وحنا لغا قاشان تا dambiyada sidoo kale nabiga wuxuu dhahay qofka sooman yuusan ku hadlin hadal xun hadii xataa qof caayo ama aflagaadeeyo ku dhaho fa innahu imsaa'imun anigu waan soomanahay inimru imsaa'imun. soonka ma ahan waxyaabo oo waxay kamid tahay waxyaabaha iimaanka qofka bani'aadinka oo lagu tijaabinayo kamid tahay. soonka waa camalka kaliya Allah subhanahu wa ta'ala awaal marintiisa asiga dhiibayo qof walbo ilaa heerka uu ka shaqeysto ayuu leeyahay camal walbo laakiin oo anaga shaqeysano awaal marinteeda waa leenahay laakiin soonka Allah subhanahu wa ta'ala ayaa iskale fa innahu li wa ana ajzi wuxuu dhahay aniga leh soonka anigaan ka awaal marinayo insha Allah xabiibati soo dhawaada meel walbo aad joogtaan. sidoo kale waxaan sheegayaa inaan joojiyay xadiis mankii aan soo gali jiray ilaa ramadaanka waxaan soo galin doonaa soonka axkaantiisa sida hore idinku sheegayba waa qeybo yar insha Allah waa xalqooyin aad u yar ilaa ramadaanka oo soconayo qeybahaas soo gelinaya markuu soonka dhamaado waxaan soo gelin doonaa xadiis mankeeni iyo mowduucyadii idinka balan qaaday insha Allah mar walba waxaan idinku codsanayaa inaad igu soo duceysaan hooyo macaan oo xanuunsan in Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad siiyo idinkana waxaan idin rajeynayaa caafimaad cimri dheer in Allah subhanahu wa ta'ala idin siiyo bisha barakeysan ee ramadaan ajarkeeda camalkeedan insha Allah inuu ilaahay fadligeedana siiyo insha Allah waa bishii quraanka soo degay shahr ramadaan alladhi unzila fihi القرآن وبالبركيسن قيريسن إن شاء الله كفائديسن سو دواada meel walbo aad joogtaan fadlan channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe sar like dhiirgelin ayaanoo tahay la wadaag asxaabtaada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay wixii aad naftaada la jeceshahay la jeclaa walaalkaaga insha Allah comments-koos nooga reeb mowduucaad u baahan tahay in laga soo hadlo anigu waxaan hafsaa halkaan naga daawanaysan waa Xafsas channel ala barnaamijkan waxa idin soo gudbiso islaaniga waa Xafsas Sayid soo dhawaada meel walbo aad joogtaan sida horni ugu sheegay muuqaaladeyda aad ay uga gaaban yihiin waxa idin soo gelin doonaa muuqaalo aad u yar idin cajimin doono faa'iido badan idin leh insha Allah soo dhawaada dal iyo dibadda meel walbo aad joogtaan cimri dheer iyo caafimaad in Allah subhanahu wa ta'ala siiyo ayaan idin ka rajeynayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.